يسألوني عن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاول علي الكسر دواتان برنامج كني إحسوسي أو كبح تيفي جن عالمي هون كيبل تيفي. وحين هاد بيسكو حسوسنا برنامج كاسي دعضة أرقنه inay muhiim tahay ayaynu isku xasuusinaa. waxaynu isku xasuusinaa, waxaynu u aragnaa inay muhiim tahay in lagu baraarujiyo bulshada iyo dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed dunida meeshay doonaanba ha ka joogaan. maanta waxaynu isku xasuusinaynaa barnaamijkeenani xasuusi jumcada iyo axkaamteeda. maalinka jumce ama yawmul jumca waa axkaam. maalinka jumce waa maalin aad iyo aad u qaaliya. waa maalinkaasi shirka usbuuc kasta dhaca ee guriga ilaahay ka dhaca muslimiintu ay isugu yimaadaan ay isku xog wareystaan ee mowduuca markaasi muhiimka ah ee taagan ay kaga hadlaan ee imaamka iyo khadiibku uu ku gorfeeyo dadka muslimiintaana uu gaadhsiiyo. maalinkaasi waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu fadliga badan ayaama ilaahay, sida xadiiskii Abu Hurayra warinaya radiyallahu tacaala canhu tilmaamayay saxiix ligayriga ahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi: laa tatlucu shamsu walaa taqrubu calaa yowmin afdal min yowmi ljumca. qoraxina uma soo baxdo, qoraxina uma dhacda buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin ka fadli badan maalinka jumcaha. waa maalin ay ku duugan tahay taariikh aad iyo aad u muhiima oo qaaliya. waa maalin ay ku duugan tahay taariikh aad iyo aad u weyn. waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam uu abuuray. siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay, wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam: khayru yowmin طalacat fiihi shamsu yowm اljumca. maalin qoraxay u soo baxdo maalinka ugu khayrka badani waxa weeyaan maalinka jimca buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. limaada? fiihi khuliqa aadam. nabiyullaahi aadam baa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuray. wa fiihi udkhila aljanna. maalinkaas jimcaha ayaa jannada la geliyey. wa fiihi ukhrija minha. isla maalinkaa jimca ayaana jannada laga soo saaray. walaa taquumu asaacatu ila fi yowmi اljumca. saacaduna dhici mayso, qiyaamuhu dhici maayo maalinka jimco mooye maalin kale dhici maayo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. waa xadiis muslim iyo keyrkiiba ay markaasi wariyeen. maalinka jumcuhu ama salaadaasi jumce waa salaad faral ah oo kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga iyo ijmaacuba ay daliilu yihiin calaa fardiyatiha, inay faral tahay ay daliilu yihiin. waa salaad faral ku ah calaa kulli muslimin mukalaf. qof kasta oo muslina oo mukalafa, yacni waxa weeyaan oo waajib uu saaran yahay oo qaan gaadhay, inay salaadaasi yacni waxa weeyaan mid ku waajibtay weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qur-aankiisa inoogaga waramaya inay waajib inagu tahay. oo ilaahay baa aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascaw ilaa dikri illahi wadaru lbayc. ilaahay wuxuu la hadlayaa dadka muuminiinta ah. wuxuu ihi marka imaam muadinku idinku yeedhabo rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay salaada jumce ee loo dhawaaqo ee masaajidka laga dhawaaqo, ka taga ganacsi iyo waxaa haysaan, iib hadday tahay iyo soo iibsasho hadday tahay iyo wax kasta oo kale oo kaa mashquulinaya salaada iyo cibaadada iyo dikrigaasi ay tahay, ka taga baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina leeyahay. wuxuu ilaahayna leeyahay: fascaw ilaa dikri illah. u yaaca ilaahay dikrigiisa u degdega ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala ina leeyahay. wadaru lbayc, baycana ka taga. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamaya, aayadaasi qur-aan inoogu tilmaamaya ama inoogaga waramaya inay salaada jumcadu ay tahay faral ay tahay. markay salaadaasi timaadana wax kastaoo kale aad gacanta ku haysa inaad ka dhigto si aad u hesho dembi dhaafka ilaahay tabaaraka wa tacaala. waxaa laga soo reebaa dadka salaadaasi ay waajibka ku tahay. waxaa laga soo reebaa dadka ay waajibka ku tahay salaadaasi ilmaha yar oo aan qaan gaadhin, waajib kuma aha salaada jumcadu. haweenayda iyadana waajib kuma aha. adoonka la leeyahay isagana waajib kuma aha inuu tukado. qofka mariidka ee masaajidka tegi kari waayey ee xanuunsanayana isagana waajib kuma aha. laakiin haddii iskalifo oo uu kaco oo uu masaajidka tagu cibaadada u tago waa ay ka ansaxaysaa, ajarkiisa iyo sawaabkiisina waa leeyahay. waxa kalaana iyaduna waajib aanay ku ahayn qofka isaguna musaafirka ah
walow ay culimadu taas ay isku khilaafaan. waxa ay salaadu yani waxa weeye jumcuhu uu ka dhacayaa sidoo kale dadka qofka isaguna cudurdaarka haysta, hadday daadad yani waxa weeyaan ay jidadkii gooyeen, haddii ay baraf iyo roob uu da-ayo oo aanad masaajidka u bixi karayn oo noloshaadi ay khatarba gelayso, iyadana waa cudurdaar baad u haysataa in aanad yani waxa weeya jumcihii aanad ka qayb qaadanin. maalinka jumce wuxuu u baahan yahay, ciiddaasi waxay u baahantay ama maalinkaasi wuxuu u baahan yahay in loo diyaargaroobo, qofku u diyaargaroobo, isticdaad buu u baahan yahay. qaabkaad ugu diyaargaroobaysaa waxa weeyaan dad muslimiina baad u tegaysaa, masaajidkaad tegaysaa, garbaha iyo gundaha ayaa la isku wada qabanaya, waa inaad maydhataa oo si yani waxa weeyaan si aydan isu karaahiyeysan dadka muslimiinta, waa inaad maydhataa oo jidhkaaga soo nadiifisaa maalinkaasi jumcaha. haddaad cadar haysatana waa inaad isagana cadarkaad haysato aad xoogaa iska soo marisaa. haddii aad helayso waa inaad ilkahaaga soo nadiifisaa oo aad soo cadayataa. waa inaad soo xidhataa maryahaaga kuwa ugu qurquruxda badan leh oo aad isku soo qurxisaa. walow haddii aad helayso yani waxa weeye waxaa kasii wanaagsan weliba maryo iyagu cadcad oo ah maryo aada u cadcad oo nadiifa. qofku marka uu intaas kusoo diyaargaroobo ee uu jidhkiisii kasoo shaqeeyo, isa soo dhiso, ee uu yimaado guriga ilaahay ay isugu imanayaan walaalihiisa kale ee muslimiinta ah ee magaalada afarteeda garajaha isaga imanaya, qofka uu masaajidka yimaado waxyaabaha looga baahan yahay qofka waxaa ka mid a ay masaajidka qofku uu yimaado waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid a atabkiir, inuu soo kallaho oo uu soo degdego oo goor hore masaajidka yimaado oo safka hore yani waxa weeyaan uu galo oo uu ka agdhowaado imaamka, uu ka agdhowaado. waxaa kaloo looga baahan yahay qofku marka uu subaxii yimaado ee imaamka ka agdhowaado yani waxa weeyaan ina uu ku mashquulo dikri, inuu ku mashquulo iyo istikfaar iyo cibaado iyo inuu ku mashquulo ayaa loo baahan yahay. waayo degdegidda salaada jumco loo degdego oo loo kallaho oo masaajidka goor hore la tago ajar fara badan iyo sawaab fara badan bay leedahay. waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi qofka yani waxa weeyaan ugu soo horeeya ee saacadda ugu horeysa yimaada waxa uu la mid yahay sidii qof yani waxa weeyaan badana neef geela ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaaday. qofka saacadda labaad yimaada wuxuu la mid yahay qof neef loo ilaahay ugu dhowaaday. qofka saacadda saddexaad yimaada wuxuu la mid yahay qof neef idaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaaday. qofka saacadda afraad yimaadana wuxuu la mid yahay qof dajaaja ama digaag yani waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaaday. sidaas darteed waxaa loo baahaya markaasi walaalayaal inaynu u degdegno salaada jimcaha, aynu camiro masaajidka, oynu safka hore buuxino, aynu ku mashquulo dikri iyo istikfaar iyo dambi dhaaf ilahay aynu weydiisano, oynu qur-aanka yani waxa weeyaan aynu akhrino. qofku marka uu soo galo masaajidka maalinka jimca maaha inuu dafdaf yidhaahdo dadka qortooda ka tallaabsada boos intuu eegto iska fadhiistee, waa inuu taxiyatulmasjid tukado. labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka la yidhaahdo waa inuu tukado qabla aljuluus, intaanu fadhiisan ka hor. waad yaro fadhiisan kartaa, biyaad cabi kartaa iyo wixii lamid a haddaad soo haraaday ama aad soo daashay, laakiin markiiba haddana waa inaad kacdaa oo aad tukataa. waa inuu taxiyat almasjid ku bilaabaa oo qofku uu tukadaa labadaasi ragcadood. jumcadu dadka bani waxaynu iska naqaanaa soomaalidu marka imaamku uu soo galo waxaa la tukadaa 2 ragcadood oo sunna oo jumcaha ka horeeya oon taxiyatu masjidka ahayn. 2 ragcadood oo kale ayaa la tukadaayo dadku ay u wada kacaan. 2 ragcadood ee la tukado ay dadku u wada kacaan sunna maaha. nabigana calayhi salaatu wasalaam kama sugnaanin laysa liljumca sunna qabliya, male jumcuhu sunno yani waxa weeyaan ay ka horeyso male. ha tukanin sunnadaasi, dikri iyo quraan akhris iskaga mashquul intii aad la iman lahayd waxaan mashruucaan waxa weeyaan ahayn. waxa kaloo iyaduna muhima maalinka jumcaha inaan xalaqad kaloo cilmi xitaa lagu baranayo ama ha lagu shirayo ama ha lagu sheekaysanayo masaajidka aan laga qabanin, oo dadka muslimiintiihi intay jimcaha ka hor yimaadaan aanay mashruuc kale iyo howl kale aan masaajidka laga qabanin, walow haba ahaato yani waxa weeye darsiye ay yani waxa weeyaan u fadhiistaan baa loo baahan yahay salaada jimcaha oo aan shir kale la qabanin jimcahaas yani waxa weeyaan ka horeeya. qofku marka uu yimaado jimcaha ee imaamku khadbada galo ee uu mimbarka ku istaago waxaa looga baahan yahay si aanu jimcihiisii aanu uga dhaawacmin ama aanu uga qoonmin ina uu aamuso ayaa looga baahan yahay. qofku marka uu jimcaha masaajidka yimaado dadka qaarkood baa dadka qoortooda ka tallaabsada oo qaar ku tunta oo dadku ay karahsadaan isagoo doonaya inuu isagoo ugu dambeeyo dadka safka ugu horeeya inuu galo. taasi walaalayaal ma fiicna.
waa inaanu qofku aanu dadka qoorahooda aanu ka taltallaabsan, waa inaanu laba qof oo isku xigo isku dhegan aanu koran kala intuu kala kaxeeyo halka ay baneeya anigu aan ku tukaday, waa karaahiya looma baahna. haddaad laakiin aragta meel bannaan oo saf dhexe ku taalla, waa inaad halkaasi waa inaad tagtaa oo aad buuxisa, waayo adigu eedda ma lihide dadka baneeyey ee halkaasi camiri waayey ee buuxin waayey ayaa eedda iska leh. waad geli kartaa halkaa, laakiin intaad halka ugu dambaysa dadka haddaad badhna kusii tumato badhna aad kala kaxayso, taasi ma banaana. waxyaabaha jimcahaaga qoomayana ayay ka mid tahay. waxyaabaha aan loo baahnayn waxaa ka mid ah inaad qof muslina oo walaalkaayo saaka soo kallahay inaad meeshiisii intaad ka kiciso adigu halkiisii yani waxa weeyaan iyo booskiisii aad fadhiisato, iyaduna markaasi waxa weeyaan ma banaana. qofku haddii uu soo kallaho masaajidka goor hore uu yimaado, waa bani aadam waa daalaya ama yani waxa weeye waa luloonaya. haddaad istiraahdo masaajidkaad ku dhex seexan doontaa, waxaad samaysaa booskaad fadhida ka kac oo meel kala fadhiiso. xadiis xasan bituruqihi ayaa ku soo arooray booska ka kac, boos kala fadhiiso oo bedel meeshii. sababtuna waa maxay? cilada aad u bedelaysa waxa weeyaan cilada aad u bedelaysaa booska aad u bedelaysa waayo alxaraka bay culimadu yidhaahdeen tudhib nucaas. xarakada iyo dhaqdhaqaaqu waxay kaa kaxaynaysaa yani waxa weeyaan lulada ayay kaa kaxaynaysaa. markaad meeshii ka kacdaad fadhidaad meel kale u kacdo, waxaa laga yaabaa booska bedelato inay hurdadii ama luladiiba ay yani waxa weeyaan ay kaa duusho. inahaasoo ayaynu kusoo koobaynaa insha allahu tacaala. inaha hadda aynu tilmaamnay walaalayaal waxaa la inooga baahan yahay inaynu dhaqan gelino, aynu dhaqan aynu u bedelno insha allahu tacaala. intaynu barnaamijka mid lamid a isugu imanaynana insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa fi amaan illah. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. لا تسألوني عن حياتي. الله أكبر الله أكبر الله